maalin wanaagsan ku soo dhawaada Odoros maanta waxaynu eegaynaa buugga dirkiisa camaalada ee uu qoray qoraaga Soomaaliyeed Axmed Ibraahim Cawaale. buuggan waxa uu ka sheekeynayaa ama wuxuu isku dayayaa inuu iftiimiyo melka soo jeedka Soomaalida. buuggan waxa uu xambaarsan yahay cilmi baaris aad u ballaaran oo uu qoraagu ku sameeyay bulshada Soomaaliyeed iyo cariga Soomaaliyeed ama dhulka Soomaalidu degto. qaybta koobaad waa maxay magaca Soomaali? sida loogu muransan yahay meelka soo jeedka Soomaalida ayaa waxa sidoo kale dood weyn ka taagan tahay magaca Soomaali meesha uu ka yimi cidda bixisay ama goorta uu baxayba. dadka qaar waxay qabaan in Soomaalidu ka soo jeedo ama ka soo tafiirantay awow hore oo la oran jiray Soomaali, awowgaasna loogu magac daray Soomaalida. aragti kale ayaa jirto iyaduna oranaysa ereygu waxa uu ka soo jeedaa amaba ka yimi ereyga af Carabeed ee Soomaala oo lagu macneeyay isha ayuu ka tuuray oo loola jeeday oday Soomaaliyeed oo walaalkii isha ka riday. qaar kale waxay sheegaan inuu magacu ka soo jeedo martisoorka wanaagsan ee Soomaalida, Soomaal, sida xoolaha u Soomaal oo kale. waxa kale oo la sheegaa in magaca Soomaali ka soo jeedo erey kale oo af Carabi ah oo ah Dhumaalin oo micnihiisu noqonayo hodan ama maalqabeen, kaasoo u qalmay marka la eego cuudka Soomaalida ama xoolaha Soomaalida iyo kheyraadka dabiiciga ah ee Ilaahay ku manaystay Soomaalida, iyo dhanka kale saboolnimada ka jirtay waqtiga dhulka Carabta. aragti kale ayaa sheegaysa in ereygu ka soo jeedo isku xidhka laba erey oo kala ah so oo lahjada mayga ku ah hilib iyo maal oo la micno ah ku nool, marka la isku xidhana noqonaysa kii ama kuwii hilibka ku noolaa oo loola jeedo xoolo dhaqato. haddaba magaca Soomaali ilaa hadda inta la ogyahay waxaa la xusaa in ugu horreyn lagu dhex arkay qoraal heeslibineed ah oo ku saabsan guushii boqorkii Negus iyo Shaag ee Itoobiyaanka ahaa ka gaadhay dagaaladii uu la galay muslimiintii imaaradii Ifat, waana xilligii xabashidu gubtay Saylac, waana markay dileen Suldaan Sacaaddiin waxayna gacanta ku dhigeen imaaradii Ifat oo xilliyo dambe noqotay imaaradii Cadal ama Adal. sidoo kale magaca Soomaali meelo dhowr ah ayuu kaga jiraa ama kaga xusan yahay kitaabka Futuuxa al-Xabasha oo xilligiisa lagu hilaadiyo 1540 ilaa 1550. waxaa kitaabka dejiyay Shihaabudiin Axmed, waxaana uu ka warramayaa dagaaladii uu qaaday Axmed Ibraahim al-Qaazi Axmed Gurey ee ay iskaga soo horjeedeen masiixiyiintii ardal Xabash iyo xoogagii muslimiinta ahaa. iyadoo aynu sheegnay in qoraalka magaca Soomaali aanu ka horreyn inta la ogyahay qarnigii 15aad, haddana lama oran karo Soomaalidu ma jirin xilligaas amaba ka hor. waxa uu qabaa qoraaga buuggani inay Soomaali ahaayeen dadka raadadkoogii soo yaal dhawaan laga soo shaacbixiyey Laasgeel oo 50 kilomitir Hargeysa kaga beegan dhinaca waqooyi bari. haddaba qoraagu waxa uu leeyahay dhowr jeer oo aan booqday meeshaas oo aan u fiirsaday sawirada ku xardhan oo ah lo ama sacyow dararsan iyo ninka hor qotoma iyadoo saca si ula kac ah dherer ahaan looga weynaysiiyey qofka hor taagan ama mararka qaar hoos taagan inay dadkaasi ahaayeen dad ay dhaqashada lo'du udub dhexaad u ahaayeen arrimahooda dhaqandhaqaale iyo rumayneed. xoolaha ay dhaqdaanna ama maalaanna ahaan jiray lo, sidaasna ay ku noqdeen sacmaallo, kadibna ereygaasi isku bedelay ama ku ururay Samaale, waxaana keeni kara in xarafka ca meesha ka baxo sacmaale noqdo Samaale marka ay ku dhawaaqayaan dadyow aan karin xarafka ca. halkaasna weeye meesha uu ka yimi ereyga Soomaali. wuxuu qoraagu inta raacinayaa inuu qabo inay jiri jirtay boqortooyadii Sacmaalada oo ahayd xilligeedii boqortooyo ilbaxnimo hor leh lahayd. waxa uu qoraagu isweydiinayaa sababta hore loogu maqli waayey magaca Soomaali heestan baroordiiqda ah ka hor ee ninka xabashiga ahi tiriyey. waxaa jira sababa dhowr ah, balse wuxuu soo qaadanayaa qaabka uu u sababeeyey qoraa Maxamed Cabdilaahi Riiraash. wuxuu leeyahay badanaa dadka wax ka qori jiray Soomaalida waxay ahaayeen dad ajaanib ah oo aan badanka soo dhaafin xeebaha sida Berbera oo dadka ku nool loo yaqaanay Berber, mararka qaarna loogu yeeri jirayba Berber Aswad si aan loogu qaldin kuwa waqooyi
waqooyiga Afrika. qodobka labaad waxaynu u soo galaynaa su'aasha ugu muhiimsan ee xudunta u ah buugga oo noqonaysa Soomaalidu halkii ka soo jeeda. su'aal aad loogu kala aragti duwan yahay. dadka qaar waxay qabaan in Soomaalidu ka soo jeedo koonfurta Itoobiya, dad kale waxay qabaan in Soomaalidu asal ahaan degi jirtay waqooyiga Cariga Soomaaliyeed, siiba dhulka u dhaxeeya Ceelaayo iyo Saylac oo ay si tartiib ah dhinaca koonfureed iyo galbeed ugu riixeen Oromada. waxa kale oo jira qoraas Soomaaliyeed oo la yiraahdo Ibrahim Cali, wuxuu ku doodayaa in Soomaalidu yihiin dadka ugu da'da weyn bulshooyinka ku dhaqan Geeska Afrika, waxaana ereyo af Soomaali ah laga soo dhaxeli karaa qaar ka mid ah afafka Nilotiga ee lagaga hadlo Suudaan iyo Kenya. qoraaga buuggani haddaba waxa uu aad u xoojinayaa aragtida odhanaysa ama qabta in Soomaalidu muddo fog deganeyd kuna nooleed bariga Afrika. inta aan la bilaabin DNA ama baaritaanka hidde-sidaha si loo ogaado meelka soo jeedka ummadeed, waxaa la adeegsan jiray luqadaha. luqadda Soomaaliga waxaa lagu tiriyaa luqadaha loo yaqaan Kushitiga oo lagaga hadlo dhulka u dhaxeeya koonfurta Masar ilaa Tanzania. waxay markhaati u noqon kartaa in Soomaalidu ku noolaayeen dhulkan amin fog. qoraag waxa uu qabaa in Soomaalidii hore yihiin kuwa ilaa maanta raadadkoogii laga helaya meelo badan oo ay ka mid yihiin Laasgeel, Dambalin, Jilib Rixin, Xaad, God Xardhane, Dhagax Kurre iyo meelo kale oo badan oo dhammaantood ama badidood ku teedsan buuraleyda ku dhararan badda gacanka cadme. waxa kale oo uu qoraaga buuggani qabaa ama uga soo baxay baaritaano uu ku sameeyey Laasgeel in magaca Laasgeel yahay mid mar dambe goobtan loo bixiyey, isagoo ku sababeynaya aragtidiisa sida aan hal ama awr looga soo heli karin waxa sawirra meesha lagu xardhay oo aan meelnaba wax geel ahi ka muuqan. waxa kale oo uu cuskanayaa warbixin ay diyaarisay Dr. Sacaado Mire oo sheegaysa in dhaqashada lo'du ku horeysay Soomaalida, waxayna tani caddaynaysaa in dhulkani ahaa dhul barwaaqo ah oo qoyan, balse xaalufka iyo isbeddelka jawiga cimilada ayaa dhalay dhaqashada geela. qoraagu waxa kale oo uu isdul taagayaa isriixriixa Oromada iyo Soomaalida. dad badan ayaa rumaysan in Oromadu in badan uga soo horeysay Soomaalida dhulkan ay degan yihiin, balse baryahan dambe waa aragti laga soo guuraya maadaama oo isirka Soomaaliyeed ahaa mid soo jiray inta ay Oromadu soo jirtay mid leeg. Soomaalidu waxay dhulkan deganeyd amin aad u fog oo aan marna cid kale ka riixin, laga reebo qarnigii 16aad oo ay Oromadu qabsatay deegaanada waqooyi galbeed ee Cariga Soomaaliyeed, siiba Hargeysa iyo wixii galbeed ka xiga. waana waqtigii Xabashida oo kaashanaysa Boortaqiiska ay jabiyeen dawladii Islaamka ahayd ee Adal. waxa weerarada ku dhintay Allah u naxariistay Haliyey Axmed Gurey. haddaba waxay isweydiin mudan goormay Oromadu ku noqotay meeshoodii, Soomaaliduna ku baahday koonfurta Cariga Soomaaliyeed. maxaase ku kalifay inay u siqaan ama ku fidaan koonfurta? waxyaabaha Soomaalida ku kalifay inay koonfurta u siqaan waxa keenay laba qodob oo kala ah cimilada oo adkaatay iyo dadka oo kordhay ama batay. cimilada oo isbedeshay waxa la sheegaa in dhulka Soomaaliyeed ahaa dhul qoyan, webiyana maraan, roob yaraan iyo webiyadaas oo guray aawadeed ayaa kalifay inay Soomaalidu guuraan. kororka dadka iyo xoolaha oo marba marka ka dambeysay istirayay ayaa iyaduna kaalin mug leh ka qaadatay inay dadku u durkaan dhinaca galbeed iyo koonfureedba, iyagoo raadinaya meel lagu noolaan karo oo biyo iyo badba leh. waana xilligan dambe marka uu kordhay adeegsiga geelu, fiditaanka diinta Islaamka ayaana kaalin weyn ka qaadatay dhaqashada geela, marba haddii magta iyo qoonka lagu bixinayo isla markaana uu noqday halbeeg. qoraag waxa kale oo isdul taagayaa adoonsiga dadka ama ka ganacsiga dadka iyo sida Cariga Soomaaliyeed looga dhaqmi jiray. ka ganacsiga dadku waa ganacsiyada ugu faca weyn ee aadamuhu iskula kacaan. tusaale ahaan qarniyadii 16aad iyo 18aad waxaa Afrika laga dhoofiyey oo Ameerika loo diray si loogu adoonsado ugu yaraan 18 milyan oo qof. dhinaca kale iyaduna waxaa jirta tiro taala mid ah oo badan aan la ilaabo ama aan sida looga sheekayn oo loo diray bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika ama dhulalka Carabta. bariga dhexe waxa uu ka mid ahaa dhulalka uu ka socon jiray ka ganacsiga dadka ee ugu ballaaran, siiba waqtigii loo odhan jiray casrigii dahabiga ahaa ee Islaamka oo u dhaxeeyay 750 ilaa 1258 milaadiga kadib. Islaamku waxa uu ku dadaalay inuu toosiyo ama fududeeyo nolosha dadka la adoonsado iyo madax bannaanidoodaba. dardaarankii Nebigu calayhi salaatu wasalaam ee xajatul wadaac ama xajkii nabadgelyeynta waxa uu asxaabtiisa faray eebba kaga baqa addoomihiina ku quudiya waxaad quudataan, huwiyana waxaad huwataan. balse maadaama aanay diinta Islaamku xaaraan ama dembi lama taabtaan ah ka dhigin adoonsiga, muslimiinta oo dhammi kuma dhaqmin dardaarankii Nebiga calayhi salaatu wasalaam, waana ta keentay in adoonsigu si ballaaran uga socdo bariga dhexe ama wadamada Carabta ilaa beriyo dhoweyd oo ah qarnigii 20aad. Cumaan waxay joojisay adoonsiga 1970, Sacuudiga 1962, Imaaraadka 1963, Qatar 1952. waa waqtan sida u fogeyn
oo runaantii aad u dhow. haddaba maadaama oo Soomaalidu deganaayeen xeebaha may dhici jirin in dad Soomaaliyeed loo iibgeeyo carabta, maxaa yeelay waxay ahaayeen muslimiin, islaamkuna ma jidayn in qof muslim ah la adoonsado, waana ta keentay in Soomaalidu diinta islaamka aad u soo galaan. dhinaca kale qaab dhismeedka beeleed ee Soomaalida ee tolnimada ku dhisan ayaa qofka u ahaa xayndaab nabadgelyo. sidaa daraaddeed Soomaalidu dhexdeeda iskulamay kici jirin adoonsiga iyagoo ka baqaya argoosi. hase yeeshee marsooyinka Saylac, Bullaxaar, Berbera iyo koonfurta cariga Soomaaliyeed ayaa ahaa qaar laga dhoofiyo dad ka soo jeeda Xabashi, Oromo, Uraag iyo isirro kale oo Afrikaan ah. waana arrinta Oromada oo badidoodu gaalo ahayd ku kaliftay ama ku sanduleysay inay dib ugu durkaan Itoobiya si ay uga nabad galaan qafaalashada. taasina waxay fursad siisay inay Soomaalidii xilligaa joogtay dib ula soo noqdaan dhulkii ay Oromadu hore uga qabsadeen ee dhinaca galbeedka. waxa kale oo uu qoraagu isdul taagayaa barxankii isirka Soomaaliyeed. qoraagu wuxuu qaybtan ku lafagurayaa raadka ka dhashay waxa la odhan karo taran wadaaga iyo kala guursi keenay in isirkii Soomaaliyeed ee ka soo jeeday Kushitugu uu yeesho mid laga dhex heli karo barxan bulsheed ama bulshooyin kale oo meelo kale ka soo jeeda. siyaabaha kala duwan ee haddaba isirro kale Soomaalida u soo galeen waxay isugu jiraan oo la sheegaa ama badanka diiradda la saaraa ganacsato carbeed, culimadii diinta fidinaysay iyo kuwo ku soo barakacay dhulka Soomaaliyeed kadib qalalaasihii diimeed ee u dhaxeeyay Cabbaasiyiinta iyo Umayyiinta oo kolba kuwa gacan sarreeya kuwa kale aad u leyn jireen. balse waxaa la sheegaa inay carabtu ugu badnayd ku soo qaxeen dhulka Soomaaliyeed sanadkii 908 miilaadiga kadib iyagoo ka soo baxsaday xasuuqii ay geysteen qaraamidiyiinta oo ahayd koox xagjir ah sida Daacishka ama shabaabka maanta oo kale dadka aad u gumaadayay. dadkaasi waxay badankooga deganaayeen ama ku soo qaxeen magaalooyinka Baraawe iyo Warshiikh. su'aal kale baa jirta oo muhiim ah oo buugani aad u lafagurayo oo ah maxaa ka jira carabnimada Soomaalida. waxay dad badani rumaysan yihiin in xiriir weyn ka dhaxeeyo imaatinka diinta islaamka iyo sheegashada carabnimo ee qaar ka mid ah Soomaalida. arrimaha ugu doorka roon ee suurtagal ka dhigaya in qaabkan wax u dhigmaan waxa ka mid ah iyadoo ay wadaadadii hore ee ahaa bulshada hormoodkeedu ay ku raadaysmeen dariiqooyinka suufiga ah, markaana labadii abtirsiinyo ee kala ahaatii dariiqooyinka silsilat albaraka iyo abtirsiintii dhabta ahayd ee qabaylka Soomaaliyeed isku milmaan. dadka aan fahmayn silsilat albaraka waxa weeye inuu qofku ku abtirsado sheekhii wax baray, sheekhaasina kiisaga wax sii baray. waxaa dhici jirtay oo dhaqan ahayd haddii wadaad ama sheekh doono inuu madax u noqdo mid ka mida jameecooyinka sida Qaadiriyada, Axmediyada, Saalixiya ama kuwa kaleba lagu xidhi jiray in abtirsiintiisu ku aroorto saadada. saadadu waa cidda ka taranta Xasan iyo Xuseen bin Cali oo ay dhashay Faadumo Sahra inantii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. qodob kale oo isna muhiim ah wuxuu yahay marba haddii dadka badankoodu u diga rogteen amaba qaateen diinta islaamka in magacyada af carabeedka ah ama af carabeedka ka soo jeeda oo loo dhadhansan karo islaamnimo dadku ka doorbidaan inay la baxaan magacyo hore oo lala bixi jiray islaamka ka hor. qoraagu wuxuu leeyahay sheegashada awow carbeed waxay baryaha qaar ahayd waxaa hadda loo yaqaano ama la yidhaahdo fashion. haddaba su-aashu waxa weeye awowyaashani ma awowyaal run ahba mise waa awowyaal ruuxi ah? sheegashada carabnimo maaha mid ku kooban Soomaalida, balse dadyow kale oo ah muslim ama diinta islaamka qaatay ayaa abtirsiintooda ku xidhiidhiya dad carbeed siiba saadada ama ashraafta oo ah dadka ka soo farcamay Xasan iyo Xuseen ilma Cali. waxaa tusaale cad noo noqon karaa Lich Iyasu, boqor Itoobiyaan ah oo muslimay oo abtirsiintiisa toos ugu xidhay tii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. hay bedelashadu waa wax soo jiray si la isku gaashaan buuraysto. tusaale ahaan markii ay socotay colaadii Itoobiya iyo Soomaaliya, Siyaad Barre wuxuu Soomaali ku tolay Oromo oo uu yidhi waxaa laydin yidhaahdaa Soomaali Abu, Canfartana Soomaali Ayka, Soomaalidana Soomaali Waryaa. wuxuu gaadhay inuu Oromada yidhaa waxay ka soo tarmeen Irir oo ah aabbihii Dir iyo Hawiye. haddaba qoraaga buuggan wuxuu qabaa inaan awowyaasha carbeed ahayn awowyo biology ah oo laga soo farcamay, balse ay yihiin amaba noqon karaan awowyo ruuxi ah maadaama loo tirinayo inay diinta ummadda bareen oo ka soo afjareen amaba ka reebeen ummadda diimo dhaqameedyo ka horreeyay islaamka. aragti kale ayaa iyaduna jirta oo odhanaysa odayaashu Soomaali sooc ah bay ahaayeen waxa la carbeeyey ama la carabeeyey abtirsiintooda, balse awowyaal carbeed oo Soomaalida isir iyo taran wadaag la lihi ma jiraan. waxaa kale oo uu qoraagu isdul taagayaa kala taagnida ama kala duwan
duwanaanshaha labada dhaqan ee Soomaalida iyo Carabta. Soomaalidu waxa ay ku beertay oo loo ogolaaday jaamacadda Carabta 1974 sababo siyaasadeed iyo istiraatiijiyadeedba iyadoo laga duulayo inay badda cas iyo gacanka cadmeed ay noqdaan bado Carbeed. balse dhaqan ahaan Soomaalida iyo Carabtu waa dad aad u kala fog. tusaale ahaan dhinaca guurka waxaa caan ka ah dhulka Carabta isguursiga ilmaadeerta koobaad binta lacam. waxay Carabtu u taqaanaa guurka ugu mudan ilmaadeeradu isma dhaafaan. haddaba si taas ka gedisan dhaqanka Soomaalida guurka noocan ahi way ka xishoon jirtay. waxay la ahayd guur aan gobonimo ku jirin oo marnaba lama haweysan jirin iska dhaaf ilmaadeerta. waxaan lagu dhici jirin in qolo iska dhex guursato. waxaa loo yaqaanay isku soo guryo noqosho. guur iska daaya wiil iyo gabadh ilmaadeer ah xataa ciyaar kama wada boodi jirin. balse wixii ka dambeeyay 1974 oo Soomaali badan ay tagtay Carabta siiba Sacuudiga iyo Khaliijka abaartii daba dheer kadib waxaa moodaa inuu soo badanayo iska guursiga ilmaadeertu oo dhaqankii Carabta la soo koobiyeynayo. qodob kale oo ka soo horjeeda ama ka soo horjeesanaya sheegashada Carabnimada wuxuu noqonayaa Soomaalida kuwa awowyaal Carbeed ku abtirsada iyo kuwa kale ee aan ku abtirsanin muuqaal ahaan ma aha dad kala duwan. waxa ay qaar Carab ugu ekaan waayeen qaarna Afrikaan. iyaduna waa su'aal kale oo meesha taala. waxaa intaa ku eg qaybtii koobaad ee buugga dirkiisa camaalada. waa inoo muuqaalka kan xiga.